عربات الحرب وبين الصفوف. السلام عليكم صاحب يا سودو هذا ميل والبا دونida على ka joogtaan ma maqashay in masjidka xurmada leh maanta aad u xajiso ay isku dayeen inay hore u dumiyaan man xabashay oo reer Itoobiya ah ma maqashay in aakhir zamaanka uu dumin doono Kacbada nin nabiga ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inuu yahay mid lugayar nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam sayukharribu al-Ka'bata dhuswiqatayn min al-Habasha Kacbada waxa kharibi doona oo dumin doona aakhirkeeda mid luga dhuuban oo xabashi ma maqashay qisada la yiraahdo ashaabul fil إلهي كقول القرآن كيسا سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل حيث هاي قصة كدم بيسو أصحاب الفيل حيث هاي حبشيدا اسكود دايدي مسجد كحرمضة لا إن أي إذا بدأوا سيبان أو أي دميان حيث هاي سبب تكوك اللفتي إن أي سيبان أو أي دميان قولي حرمضة لا إلهي سبحانه وتعالى أو أبوري هلكا إيو مكة المكرمة صار ولا صاحب يال عديد هلكا نكون عصبت هاي أعرب هلكا حكوسو قد بنا تاريخها مسلمين تا يو قدهم تاريخدي قالada iyo muslimiinta dhaxmartay ay halkan ku soo gudbinaa soo dhawow halkan hadaad joogto waxa joogtaa guriga taariikhda soo dhawow channelka subscribe saar ka codsanayna inaad share gareyso oo laagtana aad nagu taageerto kadib markii ay xabashidu qabsadeen wadanka loo yaqaano Yemen oo ay la wareegeen gacan ku hayntiisa kadib markii ay ka takhaluseen boqorkii ka talinay halkaas ee la oran jiray ذو النواس كاسو حكومي ودن كيمن لو يقانو إله نمنا شاكتي دينا بابيي دادكي رعيدي ساها أيري إله متي هراء أيان وصو هدرني قصة أصحاب الخدود كل عبر ماينو شانل كاين كوجر تهدادو باهانتانا هالكاس يكسو داون كريسا حباشيدو مركي إلا وريغين يمن قعن كوهينتي دلمانتي بأو هالكا يقبصدين أيا هوغانكي قاطي نينكي اللي أورنجري دوس ذو ثعلبان ayaga gurmadka u doontay u gargaareenna xilki maana u dhiibina ayaga ayaa xilka la wareeg waxa boqorkii xabashida Yemen uga masuul ahaan la oran jiray Ariyad oo maadaama xabashidii meesha ay la wareegto Yemen oo idil ay gacanta ku dhigeen ninka Ariyada ayaa wuxuu masuul u ahaa ama gobernatoor u ahaa wadanka Yemen boqorkii xabashi ee Najaashi fadhiyay Itoobiya hadaba daawadayaal ninka Ariyada wuxuu bilaabay inuu dadkii adoonsado dhamaantood oo dadkii uu cadaab marsiyo oo tacdiibiye ayuu bilaabay hatta xabashidii la soo gurmatay ciidanka lahayd qudhooda ayuu bilaabay inuu ayaga dadkii Yemen si ula dhaqmay ayana ula dhaqmo oo dictator uu ku noqdo oo umadiidan uu rafaadiyo deedna nin ciidankiisa ka tirsanaa oo hogaamiyana ahaayo ciidanka qayb kamid hogaaminiyo Abraha la yiraahdo ayaa waxa uu arkay waxa ninkani ku kacayo in aanay xabashidu ka astaahilin dadka Yemen haba ku dictatoro ha adoonsado laakiin in xabashidii qudheeda ayana uu adoonsado ninka Abraha la yiraahdo waa ay cuntami ways deedna wuu ku baxay oo ciidankii ayuu qayb qaatay waana ka soo horjeestay waxaana uu iclaamiyay inuu la dagaalamayo ninka Ariyadaasna waa xanaaqay ciidankiisi ayuu soo kaxaystay labadii ciidan ayaa dagaal u soo saftay wala iska hor yimid laakiin ninkan Abraha ayhi wuxuu ahaa nin gaaban baa la sheegay inuu ahaa nin aad u aqli badan inuu ahaana wala sheega deedna ninka Abraha wuxuu yiri ka waran dagaalka intaan aan gelin ka hor hadaynu wada hadalno maxaad u aragtaa ninka Ariyada wuxuu yiri waxba kama qabo wuxuu yiri hubkaaga iska dhig aan hubkayga dhigaya ciidanka dhaxbartinkooda aan ku kulanno aan wada hadalno hadaan isqancino waka hadaynu isqanci waynana dagaalka ayaynu ku kala baxayna inta dabadeed labadoodii hubka ay soo dhigeen labadii ciidan dhaxbartinkooda ayayna ku wada hadleen halka ay ku kulmeen ninka Abraha wuxuu yiri warniyahow waxaan is haystay waa aniga adiga maxaanu ciidankii xabasha ee Itoobiya lahayd maxaynu ugu halaagaynaa dagaal aniga ayaa is haysan ka waran hadayna adu aan dagaalano labadeena ninkii guuleysta ee soo harana wadanka xukunka u qaad halka kin kalena saas ay u dhamaato laga takhalusay intii aanu xabashi iyo hadaan ciidanka isku fasaxno umad dhan baa dhamaanayso kadibna waxa laga yaabaa labadeena in dagaalkan la ku dilo ciidankii dhamaana ay dagaalka ku dhamaadeen ninka Ariyada wuxuu yiri wallahi fikradaadu saaxib waa macquul waa saxan tahay ani adiga dagaalamayno hadaad iga guuleysatana adaa boqora oo Yemen adaa xukumayo hadaad waxa weeye aan ka guuleystana deewaakaas ana carada haysanayo sida ay ku heshiiyeen nimanka ayaga ahaa labadii hogaamiye ee xabashidu Ariyad iyo Abraha run ahaantii meesha ayada anaga ka Soomaaliya darsin weyn baa noogu jiro nimanka ayaga aad bay u aqli badnaayeen xabashida ee halka qabsaday kuwa badan oo maanta anaga Soomaaliya isku kaaya haysto ka warrama hadaan meel isugu keeno inkastoo ay u eg tahay inay mustaxiil tahay hadana ma kula tahay adiga daawada fikirka ka dhiibo nimankan isku kaaya haystee maamul goboleedyada 10 madaxweyne sheeganaysi maray ka soo bilaw muxuu ahaa kan waqooyi haystee hebelka cirro ilaa kan ugu dambeeyay Jubbaland haysta Axmed Madoobe ilaa Xasan Sheekh ilaa Dani kulli soo qabo kuwa yeerka u dhawaato hadaan hal meel isugu keenna ka waran kadibna aan niraado warnimo kala baxa deedna ninkii soo haro boqor baan ka dhigaynaa Soomaaliya 4.5 waana dhibay 4.5 daba ma jiro hadaan iska takhalustaan ninkii soo haro waan reerka u reebaynaa ninkaasana madax noqonaya ka warramo soo fikrad cajiib ma intii Soomaaliya isku dhamaan lahayd ilaa hadda halkan wiil Soomaaliyeed baa ku dhimanaya halkan wiil Soomaaliyeed ayaa ku dhimanaya naga mana baxo fikradaas aniga fikrad cajiib ay ila tahay in Soomaalida hal xukun loo yeelo waliba dadka aaminsan baan ku jira Soomaalida boqortooyo laga dhigo
maalin walba intii la isku qabsan lahaa afar sano kasta la isku qabsan lahaa waxa la yiraahdo xukun iyo haylo bilaha la isku tirinayo waxba noo hagaagi maaya saa daraadeed anigu waxaan qabaa wadankii boqortooyo loo bedelo nimankan shayaadiinta ah isku kaaya haystana hal goob la isugu keeno leeyahay war kala baxa reerka ninkii soo haran u dhiibayna almuhim ninka aryaadha iyo abraha waxay ku ballameen labada ciidan dhexdooda inay mubaarasa ku galaan ayagu ay dagaalamaan ninkii soo harana oo xukunka Yemen la wareego sida ayana ku heshiiyeen waa ilaabtay nin walba hubkiisii ayuu soo qaatay labada ciidan dhexdooda ayaan isugu yimaadeen halka ayaana lagu dagaalamay daawadayaal hadaba ninkii bilowgii dagaalka seefaha la isdhaafsaday waaga seef baa lagu dagaalamayaa kahan iyo balaayadan meel fog laga soo ridayay ma taalo oo hubka wax gumaaday meelaha fog la dagaalka maanta noolna waxa la yiraahdaa waa dagaalkii fulayada sababtoo ah fulay kasta taa uu ka qayb qaadan karaya laakiin inaad seeftada soo qaadato nin kale oo seef wato ka hor yimaado aad seefaha isdhaafsataan halka lagu dir waa geesinimo weyn baa labadii hogaamiye halka ay ku dagaalameen bilowgiina ninkii aryaad ahaa ayaa la sheegay inuu gacanta sare lahaa oo dhowr seefad markii la isdhaafsaday ayaa ninkii Abraha la dhihi jiray seef waxay ka qabsatay barta sanka ayaa ka wiiro banaanka ku dhacay meesha waxba la isku reebo maayo boqortooyo lagu dagaalamaya boqortooyo dibaasho timaadana wiil iyo walaal iyo isku talbaanahay xabashi isla nahay meesha ma taalo ninkii sanka ayaa go'ay walidaalika ayaa lagu magacaabay ninkan Abraha la yiraahdo Abraha al-Ashram Abrahi sanka go'na baa lagu magacaabay sanka ayaa halka ku dhacay ninka asaga dib ayuu u laabtay hadana uu soo caraadiyay uu soo laabtay adigu soo sankiisa dhiig ka daayo ayuu ku soo ragaal celiyay ninka asaga ahaa dhowr seefood markii la isdhaafsadana ninka aryaad ahaa qudha ayaa laga jaray halka ayaa madaxiisu duulay goobtiina waxa u soo haray ninkii la dhahay Abraha al-Habash ninkii Abraha ayaa dagaalkii ku guuleystay labada ciidanna asaga ay ku fayleen halkaas ayaana lagu badbaadiyay xabashadii tirada badneed allo fiicnaalaydana isku dhamaadaan halka ay ku badbaadiyay ciidankii tirada badneed ninkii Abraha ayaana soo haray fariintii waxay gaartay boqorkii Najaashi ee Itoobiya fadhiyay ee xabashiga ahaa deedna aad buu u carooday Abraha ayuu u xanaaqay wuxuu yiri sidee ugu dhiiranayaa inuu gobornatoriga dhamay gobolka Yemen wadanka Yemen leeyahay xukuumay aniga inuu dilo sidee uu ku keenay deedna wuxuu ku dhaartay oo sanad ku galay inuu caagihiisa saarayo ciidan Yemen ciidankiisa intuu wato deedna uu ka takhalusay ninka la yiraahdo Abraha madax haduu ku guuleysto nolosha ku qabtana inuu tinta ka xiirayo si uu u bahdilo ayuu ballan ku galay warkii asaga wuxuu soo gaaray ninkii Abrahana wuxuu ahaa nin aad u xigmad badan oo aqli badan ayuu ahaa wuxuu ogaaday in balaayo ay ku soo socoto hadaanu ka hortigina loo yaabo xukunkiisa iyo asaga deedna waa uu fikiray muxuu sameeyaa kadibna wuxuu ku fikiray inuu ka gaaro ninkan boqorka intuu soo dhaqaaqin wuxuu sameeyay jawaan ciida oo carrada Yemen ah ayuu diyaariyay tintiisna waa uu xiiray ayadana meel buu ku shubay kadibna nin ayuu u dhiibay wuxuu yiri waxaad u tagtaa boqorkii Najaashi waxaad ku tiraahdaa ninkii Abraha ahay oo ciidankaaga kamid oo saraakiishaada kamid ahay horta mar walba aniga aryaad ninka la yiraahdo waxaan ahayn laba askari oo askartaada kamid ayaan amarkaaga ayaan ku shaqeynayna adiga ayaan ku hogaansano anigu adiga taacadaada ma aan ka bixin aniga Abrahana laba askari baan ahayn waan iskhilaafnay waan dagaalanay anagoo ciidankii kale xabasho aan halaagin deedna waan ka guuleystay arrintaana waxaan sameeyay markaan arkay inuu nagu dul soconayo oo anagii na adoonsanayo Yemeniyiintii adoonsanayn oo nagu daraxta anagii saa daraadeed baan kaga takhalusay ninka asaga adiga ayaan ku hogaansanahay mid kale dhaartaadii aad dhaaratay sharadkii aad gashay inaad ciid Yemen imaanaysa ahaa si aadan u dambaabin oo sharadkaaga aad u oofiso ciid Yemen baan ku soo dhiibay tintiida aad xiir rabtana aniga soo xiirayo waa taas way ku timid adaba boqorow iga raali noqo waxa weeye gobernatooraha gobolka Yemen baan ahay sidaana ogow raali noqo inta ayuu dhiibay ninkii Abraha boqorkii markii ay u timiday fariintii iyo ciid Yemen ciidii horta waa uu qaaday tintiina waa uu arkay waa uu qoslay waa uu dhool cadeeyay deedna uu ka raali noqday ninkii Abraha maxaan u dagaalamayna marba hadii uu aniga ongol yahay oo aniga oo san iga madax banaanay oo aniga hoos imanayo mid kale dhaarteedii haduu maadaama uu dhaarteedii uu ballan fur ii sameeyay oo ciidii Yemen tan tahay ciidii ayuu cagaha saaray madaxiina gacanta ayuu ku qabtay tintii ninka la dhahay Abraha al-Habash sida ayuuna sharadkiisii ku oofistay Abraha inta kuma gaabsanin wali cabsi ayaa ku jirtay sida daraadeed si uu boqorka u raali gareeyo wuxuu ku fikiray inuu Yemen ka dhiso kaniisada ugu weyn fariin buu u qoray Najaashi uu ku leeyahay waxaan Yemen kaaga dhisayaa kaniisad aan wiligeed dunida laga dhisin inta kuma gaabsanayo ila aan carabo idil ku qasbo inay kaniisada ayada ay u soo xajiyaan su'aalka iyo Makal Mukarrama ma aadaan waa ka soo celinaya dhamaantood kaniisada Yemen ku taalo ee adiga aan ku dhisay boqorow ayay u soo xajin doonaan hadaba daawadayaal ninkii Abraha go'aanka ayuu gaaray waxaana uu Yemen ka dhisay kaniisad aad u weyn taasoo uu ku magacaabay قليس waxaa lagu bixi tii sarreysay mid aad u sarreysa ay ahdo dadka reer Yemen meel fog markay ka soo socdaan ba meel fog baa laga arki jiray dhirka ay qabtay dhismaheediina wuxuu ku adoonsaday oo ku duleystay dadka Yemen oo ay ku rafaadiyay dhismihii la dhisay dhagaxaan qaaliya oo laga keenay mamlakadii Saba madaxtooyadeedii boqoradii la oran jiray Balqiis xilligii Nabi Suleymaan jirtay madaxtooyadeedii dhagaxaantii ku jirtay ayaa la soo wada bixiyay ayada ayuu ku dhisay xoog ayuu ugu dhisay oo dadka dhan uu ku qasbay oo ku adoonsaday dhismaheedii hadaba daawadayaal ninka asaga markii uu dhisay oo uu dhameeyay dhismaheedii
dii ayaa oo carabo idil wuxuu yiri waa in loo soo xajiyaa kaniisada Qulays halka ku taallay Najaashi aan u dhis warka asaga waa la isla dhex qaaday waxa uu gaaray carabtii oo idil ayaa maqashay warkii ninkii Abraha gaalkii Yemen qabsaday xabashiga madooba waxa uu keenay miyad maqasheen ha loo soo xajiyo Qulays kaniisadii halka uu ka dhis deedna wiil carbeed ilaa dhiigu biimaha waa tan la yiri wiil carbeed ayaa xanaaqay oo dhiigu boqolka tagay kadibna Yemen buu soo aaday Yemen buu yimiday kadibna waxa uu sameeyay kaniisadii uu ninkii sheegay ayaa uu galay deedna waa uu ku saxarooday inta kaliya miya saxaradii buu intuu qaaday dirbigeeda ku malaas ayaa dhanba riinjiba uga dhigay dhamad deedna wuu iska baxayo daartiisa iyo gurigiisa ayuu ku laabtay soo wixii hadii la gaaraba meesha ayda maxaa la galaaba waaba qarmuun sanka gacanta lagu wada haya war maxaa qaldan kadibna waa la ogaaday in lagu saxarooday saxarana riinji lagaga dhigay baasha ayda si wacan buu yeelay ninkaas khayr Allah siiyo deedna ninka Abraha aad buu carooday urwa iyo cid saayeesh waxa la yiri waa nin carbeed oo carabtu maxay rabaan su'aadu maadan dhihin laga yimaado Makal Mukarrama oo beedka loo xajinay halka loo soo xajiyo arinta way ka xanaaqeen nin carbeed ayaana sidan sameeyay deedna dhaar buu ku maray inuu duminayo beedkaas Maka ku yaalay Makal Mukarrama Baytullahil Haram inuu dhulka la simayo ayuu dhaar ku maray oo sharad ku maray kadibna ciidamadiisii ayuu amray ninkii Abraha al-Habashi ahaa ciidamadii ayaa la diyaariyay 700,000 oo askari ayuu diyaarsaday ninka Habashiga nimanka Habashida niman wali wada kaaran ay ahaayeen wadiga arkay maanta ciidanka tirada badan meel walba yaacay wali wada ciidankaas ay ku shaqeystaan ciidan laana waxa ma qabsan karayaan waana sida xaqiiqadu tahay dawlad kasta oo la rabo inay qawi noqoto waa inay samaysataa ciidan hadaa daciif tahay adduunyadu maanta daciifka ma ixtiraamto waa lagu meerinaya qalinka la qoraya wax alla wixii doona ayaa lagu meerinaya hadaa daciif tahay waana ku qasbanta inaad iska hogato oodan waxba ka dhihin 700,000 oo askari ayuu diyaarsaday wuxuuna u jihaystay meesha la yiraahdo Makka ciidanka asaga waxa ku jiro maroodiguna waagaas xilliga asaga ah waa taangigi waxa maanta anagu taangigi u naqaano waa taangigi waaga jiri waa maroodiga carabina ma aanay aqooninba wax la yiraahdo maroodi gaadiidka ugu weyn ee carabi haysatay wuxuu ahaa fardaha iyo gaadiidka awrta geela carabi waa maqashay ninkii Abraha inuu diyaar garoobay oo soo diyaarsaday ciidan aad u fara badan na uu doonayo inuu dumiyo Baytullahil Haram hadaba maxay sameynayaan carabtu waaga waxay ahaayeen dad kala qabaa'ila oo qabiil walba gooni ay u degan yahay oo ma aanay mideysnayn oo awood mideysan ma aanay lahayn qabaa'il fara badan oo dhaxda ku jiray ayaa la dagaalamay ninkii Abraha oo yiri nooma cuntanto ceebena nagu tahay inuu ninkan intuu dhulkana dhax maro beedkii aanu Ilaahay ku caabudaynay oo aanu ku cibaadeysanin uu tago oo soo dumiyo saadaraadud sina la kugu cudur daaro ninka asaga ma yeelin waa inaan la dagaalano qabaa'il badan oo dhaxda ku jiray ayaa la dagaalamay laakiin ninkani ciidan aad u fara badan iyo taangiidii casriga ah waaga ayuu wata oo maroodiyaal cagta ayuu mariyay qabaa'il yada Khas'am ayuu la dagaalamay cagta ayuu mariyay hogaamiyihiina waa uu soo qafaashay oo maxbuus ahaan ayuu u soo watay nin la yiraahdo Nufayl ibn Habib ayuu ahaa oo cajiib ugaas ah oo qabiilka la yiraahdo Khas'am ayaa la dagaalamay waana uu jibiyo waa ka adkaaday asagina waa uu qabtay markuu rabo inuu dilo ayuu warniyo ha idilin lacala wax laga yaabaa iska ka anface ha idilin waa uu soo dhaqaaqay dhaxda markuu maray qabiil kale carbeed ayaa hadana la dagaalamay ayana waa uu ka guuleystay kadibna hadana ugaaskoodii asna waa uu qabtay asna wuxuu yiri war ha idilin dhulka carabta ayaan kala aqaanahay ugu yaraan meesha aad rabto ayaan kugu hanuuniyay oo jidka ayaan ku tusinayaa ha idilin ninka asaga wuu soo dhaqaaqay waxa uu yimid Abraha meesha la yiraahdo Taif nimankii reer Bani Thaqif halkaas ay kula kulmeen waxay yiraahdeen warniyo anagu dagaalkaaga ma rabno mana kugu aadno balaya kugu dhaco ciidan tiro badan baad wadataa iyagu marka waxay lahaayeen sanam loo yaqaan Laata marba waxay yiraahdaan Laata u soconin oo aad doonayso halka iyo makiinad aad xaramka dumiso adiga iyo waxaad u socotaba anagu shaqo kuma lihin waxaan ku dareen nin loo yaqaano Abariqal kaasoo tusinaya wadada lagu tago Baytullahil Haram Abariqal ayuu soo watay Abariqal ayaana jidka tusinayay Abariqal meel dhaxda markuu marayo ayuu dhintay asoon la gaarin Baytullahil Haram halkaas ayuu ku geeriyooday carabina ilaa maanta qabrigiisi marka ay marayaan dhagaxan ay ku tuuraan oo waa rajmiyaan maadaama uu ay khaa'in horgal ah oo cadawga soo horkacay uu ahaa adaba daawadayaal ninka asaga waxa uu socdaba waxa uu soo istaagay Maka duleedkeeda hogaamiyaashii la socotay mid kamida ayuu soo diray oo waxa uu yiri waa inaad tagtaa Maka deedna aad la kulantaa sayidka ama ugaaska jooga Maka ee nimankan Quraysh la yiraahdo hogaaminaya una sheegtaa inaan anagu dagaalkooda u soconin anigu waxaan doonayaa inaan dumiyo beedkan aan rabaa inaan dumiyo guriga aan rabaa carabi isugu timaado sanad walba oo ay waxa weyneeyaan inaan dumiyaan doonaya hadduu iga leexdo waxa kama rabo waan duminayaa waan iska laabanaya hadday dagaalamaan waa la dagaalamaya markaan ka guuleysto kadib ayaan duminaya inta iga gaarsi oo ninkan sayidka u tag marka ayada ah magaalada Maka waxa ugaaska ah nabiga awowgii oo la yiraahdo Abdul Muttalib ibn Abd Manaf Abdul Muttalib ninka asaga waa uu yimiday waxaana uu sheegay fariintii Abraha inuusan Abraha dagaal u soconin laakiin uu doonayo in uu gurigan dumiyo deedna
ninkii Cabdilmutalib ahaa Quraysh ayuu isugu yeeray iyo waxa la weeyay Carab meesha ka dhawaa waa la tashtay waxa la arkay Abraha inaan waxba loogu aalin 70,000 ciidan kor u dhaafayay iyo inta soo maroodiyaasha wato waxa lagu sheegaa ilaa 13 maroodi in watay ayaa la sheegaa oo mid Maxamuud magaciisa loo yaqaan oo hogaaminayay magaca maroodiga hogaaminaya maroodiyaasha kale ayaa waxa la yiraahdaa Maxamuud hadaba daawadayaal deedna ninkii Cabdilmutalib ahaa wuxuu go'aan ku gaaray in uu baxo asaga iyo hogaamiyaashaasi ay ka hortagaan ninka la yiraahdo Abraha al-Habashi na ay ku qanciyaan wax alla wixii xoolo ay leeyihiin inay siiyaan si uu beedka kaga laabto Cabdilmutalib waa uu tagay halka ayuu tagay intii ay soo socdeen nimankani ayaa xoolo badan ay dhaceen nimankan Xabashida ay xoolaha ay dhaceen waxa ku jiray 200 oo rati uu leeyahay Cabdilmutalib nabiga awowgi halka ay ugu tageen Abraha deedna waxay ku yiraahdeen Abraha guriga waa guri Ilaahay waa guri aanu weyneyno waa diinteeni waa diinta abayaashayo wariyaha wax alla waxad xoolo doonta qaadeen isaga laabo meesha deedna waa u diiday wuxuu yiraahdaa xoolo ma imaanin boqor baan ahay Yemen oo dhan baa haysta buurihii dahabka oo Yemen baa iga badnaaday waxaad yeelaysaa nimayahow naftiina la badbaada anu gurigaan duminaya dagaalkiina uma socdo haddaad iga hor leexataan iska baxdaana idima socdo gurigaasan duminaya haddaad ila dagaalantaan waa ila dagaalamay markaad ka guulaysid kadib ayaan duminaya Cabdilmutalib nin aqli badan buu ahaa wuxuu yiri anigu horta anagu dagaalkaaga ma rabno tabarna kuma haynoba 70,000 askari kula dagaalano ma hayno Carabi waa hore kala daadatay waa qabaayil waa sida Soomaalida maanta tahay oo kale qabiil u gudbi kara oo jirin ayaga isdilayaan cadawgoodiina u sameystay ciidan aad u weyn oo marba midkii la rabo madax laga xinayo dhamaantoodna ay Addis Ababa wada cararayaan oo ayagu waa yeelaa maanta arkayso in Xabashida isla sawirayaan saa wada qoslayaan macalladaha ku dhacday hadaba daawadayaal Cabdilmutalib wuxuu yiri warneehow haddaad diiday inaad naga laabato anigu waxaan ka rabaa xoolaha soo qaaday 200 oo neef oo aan leeyahay oo awr ayaa ku jirtay 200 ii soo celi Cabdilmutalib waxa la sheegaa nin aad u qurux badan oo weyn oo dheer buu ahaa Abrahana wuxuu ahaa nin gaaban markii uu soo galay waxa la sheegaa taariikhyahanadu ay sheegaan inuu Abraha uu heybadiisa uu la yaabay deedna uu Abraha ka soo degay sariirtiisii iyo carshigii uu saaraa dhulka waxa weeye sajaayad buu kula fadhiisay dhulka soo weyneynaya ninka la yiraahdo Cabdilmutalib markii uu yiri 200 oo rati oo aan leeyahay baad iga qaadatay iyo soo celi wuxuu yiri uma maleynin buu yiri boqorka ugaaska nimanka la yiraahdo Quraysh inuu doqon yahay ilaa heerkan uma maleynin war waxaan rabaa inaan dumiyo beed ama guri diinta abayaasha adiguna waxaad igala hadlaysaa 200 oo neef oo xoolo ka qaat maxaa ka qaldan tobansanida hadaba daawadayaal ninkii Cabdilmutalib wuxuu yiri ana rabbul ibli walil bayti rabbun yahmi markii uu ku yiri ninkii Abraha warniyo doqon miyaad gurigaad Ilaahay ku caabudays ayaan duminaya adiguna 200 oo ratibaad igala hadlaysaa maxaa ka qaldan ma dagaalantid wuxuu ku yiri ana rabbul ibli walil bayti rabbun yahmi ورانو جيلن بان leeyahay guriga adumi doontana ilaah baa iskale oo difaacan doonaya xooligiisa celi Abraha waxa uu ninka odaga waaska Quraysh loo celiyo 200 rati 200 rati ka soo qaatay oo soo laabtay Cabdilmutalib waxa uu yimiday Kacbadii 200 kamida 200 neef oo geel ahayd 100 kamida ayuu beedka u hadiyay oo hadi ka dhigo calaamadii hadiga oo ku waxay calaamad baa loo sameeyaa xoolaha marka hadiyiin oo beedka loo hadiyeeyo 100 kamida ayuu u hadiyay beedka deedna waxa uu tagay asaga iyo ugaasidii kale Quraysh Kacbada buu tagay dahmankeed ayuu ka laalaadsan إلهي بينو بريء عبدالمطلب مالنتا أيضا إلهي نينكو قريس ودفاعها إلهي قريس الدفاع إلهي نينكن سليب كيس يعني بيت كاغا كأتكاني إلهي بو بريء هالكاس أيو كؤوي أو إلهي بو بريء عبدالمطلب دادنا قراش وحا كو يلي والمقالة استقبح بوراها فولا هالكان وحا كدعايو مصيبة لعيسي بوراها أن فولنا أن بلايا كفوهان قراش ورد مسيداس أيا الوكلا ياعي أو بوراها أي فولان انتا كدب نينكي أبراهي وحا أسو جهيستي إنو الدمية بيت الله الحرام وأوصو دقاقي أو حسيسناو نين محبوسة لبني واسيا ومحابيسة وقبائل كي عربية الأحدى كلا صدق لما ayaa la socdo markii uu soo dhaqaaqay uu soo gaaray meesha loo yaqaan waadi muhassar oo musdalifay carafad agteeda ayaa uu doonay inuu dhaqaaqo oo maartay uu dumiyo maadaama Quraysh ay ka baxday Kacbada inuu dumiyo ninkii Nufayl ibn Habib ayaa soo dhaqaaqay oo waxa uu yimiday maroodigi deedna dhigta ayuu ka qabtay maroodigi markaas maroodiga magaciisa waxa la dhahay Maxamuud waxa uu ku yiri Maxamuudow cud raashidan min haythu atayt halkii aad ka timid Maxamuudow ku laabo adigoo mahadsan fa innaka fi baladillahi alharam baladki Ilaahay xurmad lahay baad joogtaa halkaas ayaad u socotaa inaad dumiso caafimaad qabtaa inuu laabo oo meeshaad ka timid ku laabo deedna Nufayl ibn Habib waa uu iska laabtay oo buuraha ayuu dhinaciisa ka koray waxa dhacday maroodigii waa uu fadhiistay xabashidu idin baa isugu yimiday waa ay kiciyeen hore inay u dhaqaajaan bay isku dayeen waa uu fadhiistay meel uma socdo ayuu yiri Maxamuud maroodigii markii uu fadhiistay way garaaceen biray ku mudmudeen waa uu kaca hadii gadaal loo jeediyo iyo Yemen dhinaci ka yimaadeen si fiican buu u soconaya waa rucleynaya hadii dhanka iyo bari loo jeediyo sidoo kale waa uu rucleynaya hadii koonfur loo jeediyo waa uu rucleynaya laakiin galbeedka hadii loo jeediyo oo beledul
الحرام حقيس لو جيديو وفديسنيا حالدي با adkaad nag waa lagu kari waayay ninkii maroodiga ahaa inuu dhaqaaqo maroodiga asaga maxamuud la dhahayay 12 kale hogaaminayo asaga ayay ka amar qaadanayeen oo dhankii loo dhaqaajiyo ay inta kale u dhaqaaqayeen oo ninkan maroodiga maxamuud la yiraahdo ayaa hogaaminayay maroodiyaasha intoodii kale oo asaga ayay ka amar qaadanayeen waana lagu kari waayay maroodiga asaga ahaa inuu kacbada aado oo ilaahay ayaa halka ku xabis maroodigu waa adoon ilaahay adoomadiisa kamid ah xoolahan waxyaabahan dhan waa adoon lamaantayo makhluuq oo idilba waxaan nahay adoon ilaahay adoomadiisa kamid halkii u socol wala u socolaysa hadii ilaahay ku diidan talaab intuu qaado ma qaadi karis sida ayaanu ku diiday maroodigii inuu aado kacbada xaaladu marka halka maraysa xabashadina ay qoosanin ay la dagaalamayaan ayaa ilaahay wuxuu soo diray tayran ababil shimbiro koox u socdo ayaa waxay ka soo baxeen badda oo ay soo aadeen halka ay xabashadii halkii joogeen shimbirahaasi waa shimbiro ciida ka badan shimbir kastana wuxuu wataa 3 dhagax xijaaratin min sijiil ilaahay ku magacaabay dhagaxaan dhooban naareed laga sameeyay oo dab oo dhamac ah ay lugooda ku sidaan midna waxay ku wada afka oo minqaarka halka loo yaqaano afka ay ku sidaa labada lugood ay ku sidaa waa helicopterada maanta ama diyaarada maanta gantaanada qaado kale ayadoo ah ayay soo galeen deedna markay ciidankii kor yimaadeen ayay dhagaxaantii ku sii daayeen dhagaxaantiina sida ayay ugu daadat ciidankii uu hogaaminayay gaalkii abraha ahaa sida ayaana ilaahay uu ku halaagay dhagaxo markuu ku dhaco waxa la sheegaa inuu ka soo galayo dhakada deedna uu barta dabadiisa uu ka baxay sidaas ayayna ku halaagsameen deedna waa ay yaaceen oo waa ay carareen halka ay Yemen meesha ka yimideen ayaa firxadkooda u cararay waa kan ilaahay kaga waramayo suuratu al-fil alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil shimraka kooxa ayaa ilaahay ku soo diray tarbihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul ilaahay wuxuu waxaanu ka dhignay sidii bal la daaqay oo kale ayaa ilaahay ka dhigay halka ayaa dhagartoodii ilaahay ku baabi markaas dhamaantood waxa la sheegay waadiyaasha meel walba inay daadsanaayeen oo ilaahay Yemen ka gaarayeen firxadkooda ugu dambeeyay ninkii abraha dhagaxaantii ku dhacday Yemen si cadba mar u sii dhacay carba mar u sii dhacay Yemen markuu tagay halka ayuu ku halaagsamay oo halka ayaa ilaahay ku dilay hadaba daawadayaal ninkii Nufayl ibn Habib ahaa ee maxbiiska ahaa ee qabiilka Qascam la yiraahdo ka tirsanaa la dagaalamay xabashada deedna ay ka guuleysteen oo maxbuus ahaan ay u soo wateen maroodiga dhagtiisa intuu qabtay la hadlayay markii ugu dambeysay ayaa markii ay laabanayeen bi hore u sii wadaan si ay jidkii ay maadaama ay wadadii aysan aqoonin jidkii u taso xabashadii deedna maanta waxay ku weydiinayaan jidkii ay weydiinayaan Nufaylna marka ayuu gabi ka tiri wuxuu rudaynatu law ra'ayti wala tarihi lada janb al-muhassab ma ra'ayna idan la'adartani wa hamidta amri wa lam ta'say ala ma fata bayna hamidtu Allah id absartu tayran ilaahi ban mahdibu markan arkay برسا وياعي وقنتالة صدادني إلهي أيان مهدي وحبشدي إلهي كهلاك وخفت حجارة تلقى علينا وأنا كبقي ولقحانتنا القصة دادني وما أنت وحاس له أرمو لقح قولع بان إسلام أنتنا هذا نوان إلهي بان كم هدني إلهي إنه سلايا لأن منك أيجا أصدق دواكي أودي واي وحي أنتوا أودوا واكي بحي واكي لا دقالمي دينا واتي أي جبيين وكل القوم يسأل عن نفيل كأن علي للحبشان الديني لما أنتوا إنه حبشدي وإدلي ما أنتنا ويديني وروددي أو وروددي أو ورنفيل وددي أو ما أنتنا كوهيا كأن علي للحبشان الدين ورحد مداور حبشدو إن الدين يقول ليين سيدي واحد الدين يقول ليين أي ما أنتن وحي إليه وراه وددي هذا بدأ وديال سيدا أي إلهي كهلاقي أصحاب الفيل نعي نقدان عبرة لمن يعتبر مثل هو نقاته إلى ما أنت قف قصد حمان ولسه قصد بيتك إلهي حرمة له سيدا أي إلهي كهلاقي إلى آخر الزمان وإيمان دورة متكلا وحبشي كاسو النبي وكت المامي مثل غير إنه يهي ذو سويقتين من الحبش بيتك إلهي نقود من دونه أو لقح أنت أبحيو لما لقحان وبدك شوف دونه دب دنبنا عن مساجد كأسجع لو ديسيدونين على مدى قيامها أيه كميت هاي سيد ونرشة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مدى وين أو آخر زمان كإيمان دونه أيه كميت هاي مركل لواي عد مساجد كوينيسة ومرحلة أي مسلمين تجاري دونان عد مساجد كحرميسة ووينيسة مركل لوايو أيه حالة أيه كل عدون تا بيت الله الحرام ده وضيال هل كان ده سوق قارتي أد بعض ما صنتها داوش ده مقالك داوتي أنت يا كسوق بجويننا قصدي أصحاب الفيل يمرودي يا حبشدي يمن وعلى كورة دونا تاريخ بدن بقوسة ودنا هذا كديبو تاريخ ذا جعشهاي إن كسو هذا النوع وكومنتيجا نقول تاريخ ذا جعشهاي إن كسو تاريخين وإن كسو ورهنو تلك سبسكرايب صار لسه عم مقالة حاجة هذا بعض ما تصنته